qof hadda loo ballan qaaday inuu gurigaas ka soo baxayna ma jirto qof kasta runtii dadaalkiisa iyo dadnimadiisa ay ku xiran tahay anaga oo haysana ciyaaryahanada Yurub ka ciyaara runtii ma aragtaa aad u weyn oo magac leh in Soomaaliya hadii ay dadaasho Riyad Mahrez maane Messi Ronaldo xitaa inay waxba ka qaadi karina aaminsanahay Soomaaliya waa ma aragtaa waa dareemaysaa kubadda cagta runtii aad u horumaraysaa mar ka dambaysa maadaama qaramada hadda ay ciyaaraysa ay tahay mid koob adduun loogu soo baxayo runtii ma aragtaa qof hadda loo ballan qaaday inuu gurigaas ka soo baxayna ma jirto qof kasta runtii dadaalkiisa iyo dadnimadiisa ay ku xiran tahay runtii ma aragtaa Soomaaliyana waxaan leeyahay aan ahaan wax dhigi karaa runtii hadii ma aragtaa la dadaalo oo ma aragtaa shaqada la rabo la qabto waa la guulaysan karaa qaliilo meesha la rabo waa la gaari karaa runtii Algeria iyo Soomaaliya waxay isdeerihiin malahan laakiin waxa la isdeeriyaa waa dadaalka uu runtii Riyad Mahrez waa ciyaartoy aad u waaweyn waaye oo meesha ay joogaan in masafka taagan yihiin ay taa mid looga cabsanayo laakiin anaga oo haysana ciyaaryahanada Yurub ka ciyaara runtii ma aragtaa aad u weyn oo magac leh runtii xulkaana ma aragtaa waxtar u leh ma aragtaa guul keeni kara sida hadda Umarani oo kala laacibin fiican xulka qaranka Soomaaliya ku jiraan runtii waan aaminsanahay Soomaaliya hadii ay dadaasho Riyad Mahrez maane Messi Ronaldo xitaa inay waxba ka qaadi karina aaminsanahay qofka kale laakiin dadnimo u baa hadii la dheelo waa laga badin karaa